ku soo dhowaada akhyaaray Hayba Movies. muuqaalkeenan maanta waxa aynu ku sharixi doonaa filim action ah laguna magacaabo Bastille Day. filimkeenani waxa uu ku bilaabmayaa Michael oo dadka xadaaya, saaxiibadiina waxa ay ahayd mid dadka ka mashquulinaysa. waxa soo muuqanaya ninkan oo ah wakiil gaar ah oo ka tirsan CIA-da laguna magacaabo Briar. waxa uu saaxiibkii kula kaftamayaa in uusan shaqadiisa u gudan sida saxda ah ee ay wakaaladu ku amartay, taas oo ka shiftay haweenaydii la shaqayn jirtay. waxa soo muuqanaya nin rakibaya qarax. waxa uu u dhiibayaa gabadhan oo lagu magacaabo Siyu, isagoo uu sheegaya in meesha ay bamka ay dhigi doontaa ay tahay meel faaruq ah oo aanay dadi joogin. ujeeddadooduna ay tahay in ay dawladda ku cabsiyaan oo keliya. dhanka kale waxaynu arkaynaa Michael oo la kulmaya oday si uu uga iibiyo alaabta uu soo xaday. Siyu waxay aaday bartilmaameedkeedii iyada oo dhigtay bamkii, se waxa ay ku aragtay in ay shaqaalihii nadaafaddu ay joogaan goobta, taas oo keentay in ay dib uga laabato qorshaheedii iyada oo markiiba dibadda u soo baxday. wacdayna ninkii una sheegtayna sidii ay wax u jiraan. se Michael ayaa goor horeba shiish ka saartay oo markiiba si qarsoodi ah uga dafay boorsadii, si wax aanu ogayn in uu balaayo faraha la galay. markii uu ka fogaaday ayaa uu baadhay, se waxa uu ka helay boombalada ay carruurtu ku ciyaarto. waxaana soo dhacaya moobilkii Siyu. marka uu ka qabtay waxba waa uu ka fahmi waayey, waana uu ku damiyey. boorsadiina waxa uu ku tuurayaa haanta qashinka. se marka uu in yar ka dhaqaaqay ayaa ay meeshiiba isla qaraxday. marka uu soo kacay Michael waxa uu arkayaa meeshii uu boorsada ku tuuray oo holcaysa. isagoo argagaxsan ayaa uu meesha iskaga cararay. raggii maleegay qorshuhuna waxa ay maqleen dhawaaqa qarax, iyagoo u fahmay in la fuliyey qorshahoodii, iyagoo bilaabay in ay dawladda u diraan hanjabaado. muddo 36 saacadood ah kadib ayaa si degdeg ah la qabtay, waxaana la weydiiyey taliyaha sirdoonka siduu kooxahan uga hortagi lahaa oo uu u soo qabqaban lahaa kooxdan argagixisada ah. dhanka kale sirdoonku waxa uu ka warhelay cidda qaraxa meesha dhigtay, laakiinse wejigiisu si waadix uma muuqanayo. sidoo kale CIA-du waxa ay baadhis ku haysaa kiiskan, waxaanay ogaanayaan dhammaan xogta Michael. sidoo kale waxay ogaadeen inuu 2 jeer hooyadii kula hadlay taleefanka waddooyinka. Briar ayaa markiiba u kacay agagaarka uu kala hadlayay hooyadii. Michael ayaa toosay, wejigiisa oo telefishanka ka soo muuqanaya, taas oo keentay in uu argagaxo. Briarna waxa uu soo gaadhay meeshii isagoo la xidhiidhay xafiiska, weydiiyeyna guryaha ku xeeran. waxa uuna galay dhisme looga shakisanaa in uu Michael joogo. sidoo kale Michaelna waxa uu qaatay lacagtiisii isagoo iskaga soo baxay, taas oo fursad u siisay in uu koro saqafka sare. nasiib darrase Briar waa uu arkayaa iyagoo is-eeganaya dusha sare ee dhismayaasha ilaa uu Michael u soo degay dhulka. waxaana uu xaday jaakadan. waxa uu arkay mid mooto ka degay, isaguna waa uu daba maray. se Briar ayaa gacanta ku soo dhigay. Siyu waxa ay ka xanaaqday in uu qaraxa ay dadi ku dhinteen. waxa ayna arkeen in ay nimani u soo socdaan si ay uga takhalusaan. se ninkii ayaa albaabka dambe ka saaray. Briarna waxa uu bilaabay inuu Michael ka hadasiiyo. se waxa uu u sheegay Michael in uu yahay tuug, boorsadana uu ka xaday qof kale, isagoo u siiyey moobilkii uu ka helay shandada. dhanka kale argagixisadu waxa ay dabagal ku soo hayeen taleefankii Siyu. Briar ayaa ku amray inuu xado si uu u caddeeyo hadalkiisa. Michaelna waxa uu muujiyey xirfadiisa si uu u ogaaday inaanu ahayn ninkani argagixiso. waa uu rumaystay kadib markii uu arkay xirfadiisa, isagoo xidhxidhay Michael mar kale. laakiin waxa uu xaday mindidii Briar. Briarna waxa uu ka arkay kamaradaha rag ku soo wajahan. marka ay albaabka ku soo garaaceen waxa ay u sheegeen in ay doonayaan Siyu. se waxa uu sheegay inuu ciwaanku ka khaldan yahay. Michaelna waxa uu ahaa mid iska furfuraya xadhkii ku xirnaa oo islaha baxso.
argagixisaduna waxa ay arkeen Michael iyagoo isku dayaya inay xoog ku soo galaan albaabka, taas oo dagaal ka dhex dhalisay halkaas oo uu Michael iskaga baxsaday meesha. Argagixisaduna meesha ayaa ay iskaga yaaceen marka ay maqleen inuu qof garaacay booliiska. Dhanka kale waxaynu arkaynaa taliyaha sirdoonka Faransiiska oo la fadhiya dhigiisa CIA-da waana haweenaydan isagoo u sheegaya inay booliisku heleen guri uu deganaa qof Maraykan ah, waxayna ka heleen qol gaar ah oo dadka su'aalaha lagu weydiiyo. Se waxay u sheegtay haweenaydii inaanay howlwadeenna ka joogin Baariis. Waxaynu arkaynaa argagixisada oo qorsheynaya inay qaraxyo ka geystaan magaalada iyagoo iskala qaybinaya. Subaxdii xigtay waxa uu taliyuhu u yeedhayaa sarkaal ka tirsan booliiska oo ka mid ah argagixisada, halkaasi oo loo diray inay soo kormeelaan masaajidda. Markii ay howlgalka bilaabeen booliisku waxa ay masaajidada dhex dhigeen bambooyin amaba qaraxyo, halkaas oo ay dadkii masaajidka joogeen ku eedeeyeen argagixisanimo. Michael waxa uu tegay ninkii uu ka iibin jiray alaabta uu soo xado, isagoo ka dalbaday in uu qariyo. Waxa uuna geliyey qolkiisii. Waqti yar kadib waxa uu arkay in albaabka dusha lagaga xidhay. Booliiskuna waxa uu ahaa mid meesha soo gaadhay, se waxa uu ka helay meel yar oo uu ka baxsado. Marka uu soo baxay waxa uu dareemay in uu shiishahan doonayo in uu toogto. Se nasiib wanaag waxa soo gaadhay Brian, wayna iskaga soo baxsadeen meesha. Waxaynu arkaynaa in shacabkii uu bilaabay mudaharaadyo ka dhannaha booliiska, waxaana taliyaha CIA-du u sheegayaa in masaajidka laga helay qarax. Se Brian waxa uu la socodsiiyey in cidda soo weerartay aanay ahayn cid ka socota masaajidka. Waxaanu Michael u sheegay in kooxda argagixisada ahi ay rabto inay gacanta ku dhigaan. Waxaanu ka dalbaday inuu la raadiyo haweenaydii uu shandada ka xaday. Waxaanay aadeen meeshii ay ku dhuumanaysay Sue, halkaas oo ay weerareen ciddii joogtay. Se waxa ay awood u yeesheen inay gabadha badbaadiyaan, gaadhigan ay ka gubaan. Laakiin Brian waxa uu xaday gaadhi isagoo dabagalay. Se marka ay baadheen xogtii moobaylkii Sue, waxay ogaadeen in ay u tagayso saaxiibkeed. Marka ay yimaadeen meesha uu ka shaqeeyay saaxiibkeed, waxa uu Brian ka dalbaday Michael inuu galo gudaha oo uu xog ka soo ogaado Sue. Waxa uuna ka dabagalay dhismaha isagoo arkay boorso jeebkiisa ku jirta. Waxa uu xaday isla markiiba moobayl isagoo mid kale jeebka ugu riday. Marka uu baadhay taleefankiisii ee uu waayay, waxa uu markiiba wacay moobaylkiisii isagoo ka helay jeebkii qofkii. Waa ayna isku dhaceen, waxaana meeshii ka dhacay fowdo, taas oo keentay inuu boorsada si fudud jeebka ugala baxo. Waxa ay ku ogaadeen meesha uu degan yahay markii ay yimaadeen gurigiisa ee ay baadhitaan ku bilaabeen. Sue ayaa Michael ku qabatay mindi. Brianna waxa uu isku dayay inuu mindida ka qaado. Markii uu mindida ka qaaday, waxa uu Brian weydiiyey meesha ay taallo miinadii kale. Se waxa ay u sheegtay in ay taqaan nin lagu magacaabo Jean, waana ninkii banka u dhiibay. Waxa ay aadeen gurigiisa. Se waxa ay arkeen isagoo la daldalay, gacantiisana waxa ay ku arkeen tattoo. Marka ay baadheen guriga, waxa ay ka heleen shandad uu ku jiro ID, kaas oo muujinaya in uu ka tirsan yahay booliiska. Waxaana uu Brian la hadlay taliyihiisa isaga oo u sheegay in ay booliisku ku lug leeyihiin qaska ka socda dalka. Waxaana ay u sheegtay inay la socodsiin doonto sirdoonka Faransiiska. Waxaanay la xidhiidhay taliyaha sirdoonka Faransiiska iyadoo la socodsiinaysa inay kooxaha argagixisada ay ku dhex jiraan booliiska oo ay weliba cadaymana u hayso. Se marka ay isku dayday in ay la xidhiidho hay'adda si ay cadaymaha ugu soo gudbiyaan, ayaa uu khaarijinaya isagoo la xidhiidhaya kooxdiisa halkaasi joogta si ay u soo qabtaan Brian. iyagoo ku guuleysanaya inay soo qabtaan, laakiin Brian waxa uu ku arkayaa inay gacanta ku leeyihiin taatuugii uu ku arkayay ninkii isdilay, isagoo markiiba ku bilaabaya dagaal kana wada takhalusaya dhammaantood. Waxaynu arkaynaa inay banaanbaxyo lagaga soo horjeedo dowladda laga bilaabay bangiga hortiisa.
waxaynu sidoo kale arkaynaa taliyihii oo saxaafadda iskugu yeedhay isagoo shacabka la socodsiinaya in dalka lagu soo rogay xaalad degdeg ah. Brianna waxa uu la xidhiidhayaa hay'addiisa, se waxa uu saaxiibkii u sheegayaa in la dilay taliyahoodii markii uu la kulmay dhiggiisa Faransiiska. Sidoo kale Brian waxa uu u sheegayaa saaxiibkii cidda qorshahan oo dhan ka dambaysay in ay tahay taliyaha. Imankana waxa uu qorshaynayaa inuu koox u diro bangiga si ay u soo xadaan, se waxa wakhtigaasi soo gaadhay bangiga kooxda ilaalada. Brianna waxa uu soo gaadhay meesha isagoo doonaya inuu galo bangiga, waxa uu ka dalbaday shaqaalaha CIA-du inay ka damiyaan kamaradaha. Brianna marka uu soo galay gudaha waxa uu la kulmay 2 askari oo ilaalada ah isagoo ka takhalusaya isagoo hore u sii galay bangiga. Dhanka kale waxa ay doonayaan inay lacagta online-ka ah gabi ahaanteed baxadaan, taas oo ka kooban 500 oo bilyan oo dollar. waxa uu soo galayaa Brian bangiga, waxa uu la kulmay ciidan, taas oo keentay inay israsaaseeyaan. waxayna Ziyu ka maqlaysaa taarka iyada oo isku dayaysa inay caawiso. waxa ayna bilowday in ay mudaharaadka kululayso, taas oo keentay in qayb ka mid ah mudaharaadayaashu ay soo galaan bangiga. Brian arrinkaasi ayaa uu ka faa'iidaystay isagoo markiiba bamba gacmeed ku qarxiyay. haddana waxa ay isku dayeen inay mar kale hareereeyaan, se waxa uu sanduuqa ugu ridayaa bamba gacmeed. waxa ayna galeen dagaal aad u adag ilaa uu wada laayay markii dambe. taliyihii ayaa u sheegayay kooxdiisa inuu howlgalka sida ugu dhaqsaha badan ay ku soo gabagabeeyaan. si askarigii ayaa u sheegayay inuu hayo lacagtii, haddii la qabtana uu ku kashifmayo wejigiisa dhabta. Brian ayaa la xidhiidhaya Michael isagoo u sheegaya inuu mid ka mid ah ciidamadu uu sito falash ay ku jirto $5 bilyan. waxaanu taliyihii bilaabayaa inuu iska bari yeelo kiiska isagoo hay'adda u sheegaya in uu jiro mid ka mid ah ciidamadiisa oo khaayin ah. Michael ayaa askarigii ka xadaya falashta. marka uu ogaaday in falashtii laga xaday ayaa uu bilaabayaa inuu dadka ka furo wejiyada maaskiyada ah, isagoo arkaya Ziyu isagoo gacanta ku dhigaya kana dalbanaya Michael inuu soo baxo. dhanka kale taliyuhu waxa uu ku amrayaa dhammaan ciidamadiisa inay toogtaan askariga. Brianna waxa uu badbaadinayaa Michael. intaa kadib Michael ayaa meesha ka baxsanaya isagoo ay gacantiisa ku jirto $5 bilyan. muddo kadib waxa kulmaya taliyihii iyo Michael isagoo taliyuhu Michael u sheegaya inuu siin doono baasaboor iyo $100,000 oo dollar. isna uu ku soo wareejiyo falashta, waa uuna siinaya. marka ay israacaan si uu soo siiyo lacagta iyo baasaboorka ayaa uu ku qabanayaa baaskoolad si uu u dilo Michael. se Brian ayaa isna baaskoolad ku qabanaya taliyihii, se waxa uu tooganayaa Michael. Michaelna waxa uu ka dhaawacmayaa garabka. waxa sidoo kale meesha soo gaadhaya sirdoonka, waxaanay xidhayaan taliyaha. waana shirqool ay u dhigeen Brian iyo Michael si loogu caddeeyo wejigiisa dhabta ah ee taliyaha. filimkuna halkaasi ayaa ku soo gabagabaysmaya.